bal ka waran haddii aan kuu sheego in kanaal baranbiyood oo aad cidhiidhi u ah uu isu bedelayo rug control oo aad qaali u ah. hadda Iiraan waxay sheegtay in maraakiibta maraya baranbiyoodka Hormuz laga qaadi doono ilaa $2 milyan markabkiiba. arrintani ma aha oo keliya lacag, balse waa xakameyn awoodeed, sababtoo ah Mareykan waxa uu qaadaa qayb aad u weyn oo ka mid ah shidaalka dunida. Iiraanna way ogtahay in dunidu aysan si fudud uga maarmi karin kadib burbur culus oo ka dhashay weeraro ka yimid Mareykanka iyo Israa'iil. Iiraan waxay hadda isku dayaysaa inay dib u hesho balaayiin dollar iyadoo lacag ka sameynaysa meel muhiim u ah oo marin ganacsi oo caalami ah. laakiin halkan ayaa arrintu khatar ka noqonaysa. xitaa haddii maraakiibta lacag bixiyaan, ma jirto wax damaanad ah oo ammaan ah, sababtoo ah ciidamada Iiraan si buuxda ma mideysna. hadda waxaa jira kooxo kala duwan oo gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo drones ah si madax bannaan u diraya. sidaas darteed hal qalad ama hal isfaham la'aan ayaa si degdeg ah u saameyn karta ganacsiga caalamiga ah. dhankan kale waxaa gadaal ka shaqaynaya Ruushka iyo Shiinaha ayaa si aamusnaan leh uga caawinaya Iiraan xog sirdoon oo dayax gacmeed ah, taasoo weeraradeeda ka dhigaya kuwo aad u saxsan. arrintani waxay ka dhigaysaa khilaafka mid ka gudbaya heer gobol oo isu bedelaya tartan awoodeed oo caalami ah. bal ka waran haddii aan kuu sheego in Shiinuhu dhab ahaantii rabo in Mareykanku ku mashquulo Bariga Dhexe. hadda Mareykanku waxa uu awoodiisa oo dhan isugu geenayaa Iiraan, isagoo ciidamo iyo maraakiib dagaalba halkaas geeyey. haddana waxa uu ku fikirayaa inuu dhulka ka galo oo ciidamadiisu si lug ahaan ay ku galaan Iiraan si ay u qabsadaan. arrintu markii horeba waxay ahayd in Mareykanku feejignaantiisa oo dhan u weeciyey dhankaas iyo Aasiya. South Korea iyo Japan ayaa waxa uu ka soo qaadaya nidaamyadiisa difaaca, waxaana geynayaa Bariga Dhexe. taasina waa waxa ay Shiinuhu doonayaan, sababtoo ah haddii Mareykanku galo dagaal dhulka ah oo Iiraan la galo, ma noqon doono mid degdeg ku dhamaada. dagaalada noocan ahi waxay socdaan bilo ilaa sanado ay gaadhaan. Shiinuhuna waxa uu sugayaa waqtigaas oo Mareykanku ku mashquuli doono 6 ilaa 7 bilood, isagoo gubaya kheyraadkiisa iyo awoodiisa. xataa maanta maraakiibta xambaarta diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku waxay ka joogsadeen 100 kiiloomitir meel ka baxsan Iiraan si ay uga fogaadaan gantaalada. haddaba ka fikir Taiwan, masaafadu aad bay ugu dhowdahay Shiinaha. inta uu Mareykanku ku xaniban yahay, Shiinuhu waxa uu dhaqaaqi karaa halkaas, iyadoo North Korea ay ka mashquulin doonto ama ay cadaadis saari doonto Japan iyo South Korea. taageeraduna waxay xadidnaan kartaa markaas. Shiinuhu uma baahna inuu degdego, waxa uu u baahan yahay hal shay oo keliya: askarta Mareykanka oo dhulka Iiraan ku sugan, halkaasna dagaal kaga jira. markay taasi dhacdana, Mareykanku halkaas ayaa ku xanibmaya, mana caawin karo Taiwan.